السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن عيارتي وصو إلاتي همبليو جرماني وحا أصو بحينس كوارتر فينالها أما نسلمات كترتن كوب قرما يرب ويمرتقلنايان كدي مركي لبقول إبادي كقباديان حول كوبادا عكتا دنماغ عيار حيسا بدند وحباء الاسكور ريبانين سو كالتاني كوت وحا موقتب هادا سويسرلان إي جرمالكا أيا كولامدي أوهري العيار بقبحدا iska xaadanay quarter finalaha kulanka midkii ka horeeyay Swiss-ka waxay labi eber kaga badiyeen ayagana Talyaaniga koobka difaacanay banaanka dhigeen martigeliyaasha waa diiday inay haraan Dortmund ay dabcan geysteen Denmark waa u kala baxeen buuqa iyo qaylada laba gool eber ka Havertz goolkula shabaq kuubsada qaybta labaad ciyaarta iyo Jamal Musiala oo kulankan soo gabagabay Nagelsmann waxa lagu amaanay go'aanka geesinimada uu qaatay isbedelada ciyaarta uu ku sameeyay iyo sidoo kale markii loo baahnaa bedelada uu sameeyay way shaqeysay kulankan waxa lagu xasan doonaa ciyaartii haaf ka hor idoo la joogo gudaha garoonka laga cararay oo dabcan laga cararay briqdii iyo roobkii ay markuu arkay garsooraha Ingiriiska wuxuu dhawr iikaadii uu hawada fiirshimuudin uu briqda dhacaysa briq ma anaga waa iska ciyaana banoon hadda briq dhacaysa laakiin kuwa risk waa listeeda ay andhaxasta Indonesia ma ahayd ma ogi waxa arkay muuqaal naxdin badan oo ciyaar socoto briq Thunder Lightning ay ku dhacday ciyaaryahan oo garoonka uu dabcan ku geeriyoodo marka briqda halisteeda leedahay aad u soo jiita waliba biraha iyo waxaas iyo markuu roobka socdo iyo iftiinkaasi waa la cabsaday marka cirka Muqdisho ah ee briqda dhaceysay gugac markii la arkay noo kaadiya la ciyaarta xoogaa 10 daqiiqo markuu jawiga caadi noqdo lagu soo laabtay ciyaarta kadib la amba qaaday saaxiibayaal ciyaarta waxay ku bilaabatay 10 daqiiqo rubi saac daqiiqo ugu horeysay Denmark meel laga jiray ka sii waa dhinaca feer afarta jiha laga feer waxa gool lagu sigal lagu helay xitaa gool madax waxa ka dhashay Shutterberg difaaca ka dhal Dortmund ka tirsan kulankan lagu soo bilaabay oo Jonathan Tah ganax ku maqnaa booskiis uu gala madax u dhashay waa laga diiday sababta Kim Jong-un celsho asiga raaci lahayd 3 daqiiqo gool ahayd kubadkan lagu helay waa yaabeen Denmark-isku xisna intaan ka soo galabo 10 daqiiqo Toni Kroos 4 jaanis oo gool loo filan karo abuuray markaas iskuwaaka waxay soo qoran waxay Toni Kroos 12 daqiiqo ugu horeyso Denmark wuxuu ku abuuray dhaheen 4 jaanis oo gool loo filan karo Ingiriiska tartanka inta ciyaaray dhan waxay dhahay haraasata ma aysan abuurin maxaa ka galay Ingiriis meesha laakiin iskuwaaka waa balaay waxa warbaahinta Ingiriiska isdaba taagin qaranka waxay Ingiriiska inta ciyaarayeen hatta jaanisna gool loo filan karo ma aysan abuurin Kroosna 12 daqiiqo intaas jaanis oo gool lagu filan gool lagu dhalin karo abuura Jarmalka iska qasaariyeen على تحل مركز دم تنبذ لقب سن دانش كلوات من داخل مركز السوق الجرمال كوال اسكندعية حتى وحكوبتها لسه بدنا نقولها لمركي بريق دي لقصة لابتي كوبت دوها الجرمال واللي بقى رسم ساج نقول هيو ولا تجا أساس كعنا فيرو وقري منو ونوير دول لنا وريان كمان يونايتد الجرمال كعادية لو أبصنا حتى مروح عدرتي هاف كهري حرد الجناح أفكار دور بلسون قطر بدنا يكونن دنمارك إيريكسون أصلا كخسارية والكو جرع كوبتها لسه بدنا حاسلها تن شبكة على سطح قاعدة لكن دربي وقرع ونفسي وعيارته ده بلال حرتين والاسكو سو لابتي markaas leeyo daraamada bilowd haaf ka hore briq dhacday waxaas Jarmalka wax waran ee laag second half ka dambe wad ee daraama hadii la isku soo laabtaba isla markiiba saaxiibayaal Jarmalka gool shabaqo dhag lagu siiyay Joachim Anderson ku ciyaar Crystal Palace goolka dhashkubad isku dhacday oo la soo tuuray saas isku laaba dalaq hali eber waan naxan Jarmalka taageerayaasha xitaa Dortmund garoon ku jireen waa aamusan laakiin xala fiirsha Jackin far review waxa la kubada offside ahead gool ma aha la qaab marka hore qaabkay ku imaad saas Jarmalka badbaadi marka waxa la dhahay gool ma aha laakiin banooniga nacal abuug way sababtoo Joachim Anderson kii daqiiqadii ka wax yar ka hor farxay oo Jarmal gool shabaqooda gaarsiin laga diiday waxa uu xigta asigana dabcan in oo isla markiiba David Rama kubad soo koray ninka garabka bidix kaga ciyaar Jarmalka gacanta kaga dhacday Anderson fara la fiiriyay waxa loo diray heblow marna loo diray ninka Ingiriiska garsooraha ah waa soo fiiriyay rigoora waa marka banooniga waa nacal abuug gool dhashay waa laga diiday wax yar kadibna xulkiisu rigoora ku kan kubad gacanta ka dhacday waxa qabsadahay Havertz kila hal fariisay ciyaartan lama fariisinay haato Nagelsmann hore u dhanin kama fariisinay Havertz ku soo bilaabay Florian Wirtz cunay hatta Nagelsmann ma uusan keenin Nicolas Fulkrug Leroy Sane ku soo daray shahada Havertz rigoorada qabsaday war waxa garoon ku jira Fiiri Gundogan ku jiro waxa ku jira Kimmich waxa ku jira Kroos ku jiro raggaas waa weyn jooga ayo ninkan isugu kalsoon yahay rigoorada qabsaday tii Scotland waxa la dhigi karaabo ciyaar waxa iska aad balaataa bilash bilaw Scotland laga bari karo laakiin this is big match wareeg la xitanaade la isku dhigan yahay every second half dama laga soo laabtay penalty taala la qabsaday ka Havertz cid ka daba hadlaysa male uu soo ordo wacag celshay markuu laakiin goolaha qatar waa shamaka Havertz waa badbaaday markuu wacag celshay waxa la arkay jaam meesha kubadda dhigaa bidixin inuu geesku dhigayo oo shamaka waa isifidii laakiin Havertz isaga wuxuu yiri alaab oo qajaf oo liin ah oo taraarixayso birta cunto dhulshanam waa ma qaban karin goolaha marka si kasto isku fidiyo jooga meterka intuu dhererka goosha iyo intuu isfidiyo waxa laga yaabaa markuu dhaxda taagan
saddex mitir bar inuu boodaa saddex mitir bar inuu boodaa marka saddexda mitir uu boodi kare barka uu ka dhigana Havertz oo birta cunaysa taas sas ku gashay goolka markaas marka Denmark ugu dambeysay waa la shadabshay Denmark iska fiicnaa goolkaas laga helay xogaa isoo waaleen haddana dhag kubad oo Havertz uu helay ciyaarta waa dili kara tunnel uu ka dhigi kare kubad dhax ka dhiiba la siiyay goolayo ula tag saana la socday saana inkastoo foul lagu galay Havertz waxa soo baxday ceebtiisa inuu san ahayn clinical finishing haduu ahaan lahay Nicholas Fulkerig number 9 kubadaas ku dhalanaa sababta gooshi waatana dhinacan ka imaaday goolayihi gooshi u yaray kadib asagana waa gam si fiican u sameeyay laakiin geeska ka martay ceebaha mararka qaar ay leedahay qofka number 9 ahaan markii number 9 laga dhigo fursad noocaas oo kale ka cunaa marka kubadaas dahabi ee Havertz uu cunay oo ciyaarta uu ku diri kare no problem dhib malaha waa imaada talaada iyada kooyas isla kubad kale ay dabcan Denmarkiiska weerar soo galan Shatterberg qabsada geeska uu joogay difaac uu joogo isla markiiba kubada ka soo tuuray positionki isla Havertz uu kubada ka helay same like that waxa ka helay Jamal Musiala nin Jamal haysta madaxa joosta oo noqonaa boosti ku soo qoray Facebook sababta Jamal kubada uu qaatay dhag ma imaade ninka lagu magacaabo Kasper Schmeichel sida uu Havertz dhulka ugu yareeyo uu Jamal ugu yareeyo laakiin farqiga labada ciyaartoy waxa u dhaxeeyay Havertz kubada wuxuu ku watay bidix ku watay lugta bidix ku watay goolayana jihada inta badan u yareeyeen waxay aad midigta u badiyay marka ma dhali karinba aad u adkay tight angle isla same like that marka typically markuu Jamal kubada la imaado boxki oo sida ugu yareeyay ninkan goolayahan this guy midig waaye wax cag jarma dhinac laga siiyay alaabaha waxa waaye oo kubadaha macaanka dhashay marka farqiga u dhaxeeya waa labada ciyaartoy oo manager tan waxa lagu kala baxay marka dabciga qofka abuurista Ilaahay abuuray lugtu ku ciyaara lagu kala harmaanay kubada typical sidii Havertz u helo Jamal u helay laakiin Jamal exactly waxa waa qaabka kubada u dhashay midig waxay aad u laabay ma celin karin ninka lagu magacaabo Kasper Schmeichel laakiin Havertz kubada waxa goosh lagu yeeray bidix la waay saas wuxuu rabaa kubada jihada inta ka tahay midig in lagu la shal rabo ayuu wuxuu rabaa bidix in ku dhashay marka not possible goosh lagu yeeray marka goolkaas wuxuu waa gool brilliant Jamal caada lagu adkeeyay hal koomer laba mar mar u martuu gooyay laakiin inta badan aad loo saaray dag kubad markuu qabsado dhabarka laga saaraa ninkii Pierre-Emile Hojbjerg si fiican u ciyaaro Spurs ka tirsan waa loo diiday Jamal kulankan inuu si fiican u dhaqaaqo war Gundogan wareer xataa ciyaarta oo wax ka qaban waayo oo la soo baxshay Henry Garweynaha waa fiicnaa foulkiisa badnaa laakiin habeenkan wuxuu sameeyay Nagelsmann badalo aad u dhaco sameeyay sababta macalinkan dhalinyaro waa haddana wuxuu yaqaan meeshii baash Gundogan iga soo baxay dhahay Garweynaha iga soo baxay dhahay sidoo kale kuwa kale badalada uu sameeyay kulli waxa aan waqti loo baahna the right time badalku uu sameeyay aad u shaqeeyay markii xataa uu soo galiyay Emre Can iyo Florian Wirtz iyo ninkii Nicholas Fulkerig iyo Jarmalka gool badan ay iska qasaaray maane ma cadadna wala xisaab inta helan laakiin goolka Jamal dhash waa loo istaagay goolkaas dhash wiilkan hadda saddex gool oo Eurada leeyahay ko Georgiana magaciisa la akhrin karno isku gool leeyino oo min saddex ilaa Havertz xitaa mid kale uu la tagay goolayaha caloosha u galshay mid kale uu la tagay geesu ka marsiiyay caawa kaligiis hat-trick waa dhalin kara laakiin no problem sababta Jarmalka waa soo baxeen cid ku eedeysa malahan xitaa Florian Wirtz gool oo shabaqa gaarsiin dhamaadkii ciyaarta waxa faara la fiirsho xal gool ma ahna la dhahay ayagana Denmark labadoo jaanis Jarmalka ku heleen waa iska difaaceen yaan iloobin ceeb ugu aan leed caawa marada iga dhicin hadaan ka tagi lahaay ninka birta cuno Antonio Rudiger soo caawa u ciyaaray ciyaartoyda qaarkood markay gool dhaliyaan dabaal degaan ninka markuu kubad balo gareeyo u leeyahay حتى إذا الذي أمره كبد بلوغري واقلقش وادبل دي مرة هافك هوري كبد وكبلوغ رسم ساج لما أدنا ما قال ننكر دانش مو هاي وريت الورا جرمالك أسيقا لقط أولك سوء علشة إنما عالمين سكن هافك هذا مسدح بلوغ ورسمي وسميه عيارت شن دقيقة على القدرة على 5 minutes القدرة سعته وريا وحكون باقي نسيه مان اوف ذا ماتش عيارت ساقاتي الحاج روديجر وأقلمي مان اوف ذا ماتش عيارت نقاطه والنها يديق دعانك يروح وهو جرمالك عاو انت كبدو اسكو قرحيه ما مليكرتد وات برفورمانس هي ديسيرفي دادنا وأقلمي إن لا سيمان اوف ذا ماتش عيارته إن عكل نيكو شتر باقولك وعاوي كلمة هنا سيسك الكوماند برفورمانس يسميه waxay ugu noqon doontaa la yaab hadii ay dhacdo ciyaarta oo Spain ama Georgia midkii soo baxay Jarmalku u baxayaan hadii Jonathan Tah lagu soo celiyo meesha ku kala xataa xoog badan waa la keenay Anton oo Stuttgart u ciyaar waxa u malaysaa saraakiish Amerikaanka Mareykanka u ogyahay ku xoog badan oo la soo xusho oo u egyahay ama kuwa musaaracada ciyaar u egyahay maxaa la jiray Brock Lesnar u egyahay ki WWE ciyaar jar musaaracada u egyahay xoog Anton intuu la egyahay waa yaabe center back way Stuttgart u ciyaarayo oo xilli ciyaareedka dhawaa kaan labaad ku dhameysteen Chelsea iyo Dortmund waxba shaxad ugu jira ninkaas xoog badan Premier League ma ka baxsan karaa laakiin markii la soo galshay asiga xataa waxa madaxiisu kubada ku soo bixinay saxab wariya in ku daalna Jarmalka Hambaliyan dhahna waa soo baxeen quarter final joogaan martigeliyaasha way damaca soo gal hadda sida muuqato Stuttgart ay ku ciyaar doonaan kulankooda xigo laakiin u baxayaan
isbaanishka haddii Georgia wala cunaysa u badantay Banooni gaala inkastoo mucjiso u yahay Georgianka Portuguese ba 2-0 kaga badiyaan waxa upset waa sameyn kara laakiin u badantay inay Spain soo bixi doonaan u badantay haddii Spain soo baxaan oo ay Jarmalka Spain ka badiyaan كوب كالكاسي كلا بحين عد كعلنيس مال صوبت مرتجليشن وايهين دنمارك ربنا إسبانيا ربنا مرة البوست وين كقالن نجلس مع مرك عيار مع تيم كيسة توني كروس نوح على صاحبي على صدق وقارن وصل لعتيبه وإلا هاد وأنبيتن لبع عيار وحلا عيار مرك اللي في شو كبديان مركو سولا وانا فرانسيسك يا هيك بديان هولني ساعتنا ما كبديان وكلا لا عيار مبرد على جنب وكلا كبديان يورد هذا أفرت كل نوع عيار واحد قول دراما وصل لكل من وصل لعتوني وأنبيتن وقدامبينتي راسموس هوشلاند دنمارك وقصاري نمبر 9 او 3 جانس او ذهبي هلي عيار كوارتر فينال فرصدها يريهين 3 جانس بس ka qasari good position حتى سوق u taagnay hadana saasaytay mar walba inuu ka dhalin waa goosha loo yaray caloosha kaga dhuftaa mid geeso marsiye mid meelaha mu kaga dhufta ma aqaani 3 big opportunity Rasmus Hojlund helo oo ka qasari Denmark haduu 3daas mid kamid ah shabaq qoobsanna ciyaarta waji kala yeelan marka xilli dambe nootayaan war idinku daalinne تفاصيل انت نوقف الى مركز انك دنكنا انكو سو وريجي حسوسنا دي اتي صاحب نوغو عصب دينال كان سبسكرايب نوصر وانو كل عندما دو الله ادمو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته